gudoomiye mudanayaal marwooyin waxaa codsanayaa in si fiican baarti la soo dhageysto xamaraawiya idin la hadlaayo banaadiri ah muqdishaawiya idin la hadlaayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maaragtay maanta goobjoog u ahay anigoo nool oo caafimaad qabo kana tirsan xubin ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya muqdishaawiya xamaraawiya banaadiri inaan maanta goobjoog u ahay in laga hadlaayo xuquuqda iyo matalaadda gobolka banaadir aad iyo aad ay farxad iigu tahay sharaf ay ii tahay waxa u maleynaa dad badan oo reer buule eelaya maaragtay inay oo dhageysanayo oo ay arkayo inay jiraan oo yaqaano qaarkoodna inta ay fadhiyaan runtii خير الله سيو صاحبك حلبان ملاقداي وانا aad u sakan garaynaya dad saaxiiba oo golaha shacabka ka tirsan beeshan maalmahan ka hadlayay anaga reer buuleel ay fursad badan ma helin maanta waxaan u maleynayaa kalfadhigan ama fadhigan dadka ugu badan oo fursad hadalka la siin doono inaan noqono runtii hadii laga hadlay leeyahay xamar dhankaana warshaaqay ku akeed dharkaana baraawe xamarna sida hadda xildhibaan fawziye ka dhawaajinaysay qolo oo maaragtay xamaraawiinaha oo cadcad ay meesha joogeen hadday reer warshaaq is sheegeen ilaa baraawe ilaa iyo reer arbaca rukun waxa loo sheegi waayo horta waa lala yaabanahay waa arrin yaab lahayd arrintaas marka intaa ka gudbo waxaan rajaynayaa annagu waxaan nahay golo sharci dejina waxaan nahay dad ka shaqeeya dastuurka ma nihin dad siyaasiyiin oo ama arrin siyaasadeed golo siyaasadeed ama arrimo hoose maaragtay ka hadlo waxaan rabaa in la wajaho arrinta meesha ay jirto qaarkood rag badan oo saaxiibada oo baarlamaanka ayaa ka hadlay 2016 markii xukuumaddii dalka joogtay ay gaari weysay in qof iyo cod wax lagu doorto madashii iyo xeer jajabyadii iyo siyaasiyiintii xeerka madaxweyne waxa uu ku soo saaray matalaadda aqalka sare 54 asal ahaanba waxay ahayd wax markaas la isku jacburiyay sanjibiil macal turaab yaro la isu geegeeyay oo duruufaha xilligaas looga gudbaayay haddii gobol ahaan la yiraahdo min 3 ayaa lagu qaybinaana maamul goboleedyo 3 oo 8 la siyaajiro haddii maamul goboleeda wax lagu qaybinaa la yiraahdo oo tiro loo caymayna lama yeelin habbeeleedna looma qaybsanin marka aas 54 ama aragtay beel ahaan Soomaaliya habbeeleed wax ku qaybsanaysa aan loogu qaybin hab maamul goboleedna aan loogu qaybin runtii aniga iyo dad badan oo ila mida waxay aad ula yaabeen xilligan annaga oo muqdishaawiina xamaraawiina banaadiri ah gobolka banaadir in maaragtay shacabkiisa lagu beer la xawsado leeyahay waxa laga hadlaa matalaadda 13 laga dhigo maya 5 ha laga dhigo maya 7 ha laga dhigo marka horena aan laga hadlin qodobka dastuuriga oo qodobka 72na aan laga hadlin habka maaragtay ee beelaha asal ahaan 54 ay ku fadhiyeen aan laga hadlin la yiraahdo waxa laga hadlayaa muqdisho meeqa la siina ma u baahna arrinta hadda in inta looga doodo oo saaxiibada qaar ay ka walaacaan beel hebel ma maamulayso mise beel hebel ay qaybinayso maya beel hebel ma u badan maya beel hebel u yar ma ahan arrintaasi waxa ka hadli karo dad siyaasiyiin ka hadli kara annaga waxa la rabaa inaan dastuurka wajahno waxaan rabaa inaan maarta sharciga wajahno saaxiibada 3 qodob soo jeediyay oo 7 la siiyo ama qaarka mooshinka soo jeediyay 13 la siiyo yaa loo badina loo yareynaya arrintu waa ay ka duwan tahay isku soo wada duub waxaan rajaynayaa in aan maaragtay cuskano dastuuriyan meesha ay arrinta ay u gabagaboobayso ay noqoto in aan laga gudbin sharciga aan laga gudbin oo waxa laga hadlayo maanta ay noqoto ayadoo xilli doorasho la joogo matalaadii maaragtay saaxiibo badan ay ka dhawaajeen inuu maqaamka muqdisho istaaska muqdisho muxuu noqonaa gobolka banaadir miya waxa wax la siinayo ma muqdisho kaliya ma guud ahaan gobolka xuduudiis intuu ku egyahay sidee wax noqonayaan intaas oo dhan waxay ahayd maaragtay
in laga hadlo marka waa bogaadinaya dhammaan qof kasta fikirkiisa aad iyo aad ay u mahadsantihiin